asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi waa qaybtii koowaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aynu ku qaadaadhigaynay dagaalkii fiidnaam dowladda maraykanku waxay u qalab qaadatay inay la dagaalanto fiidnaamiyiinta uguna tagto dhulkooda dadka reer fiidnaam ayaa dhulkaa ku noolaa 2000 oo sannadood ee ugu dambeysay xilligii uu dagaalku bilaabanayay 1955 bilihii hore ee dagaalka dowladda maraykanku waxay isku dayday inay adeegsato siyaasaddii ingiriiska ee ku dhisnayd kala qaybi oo xukun waxayna raadisay bal inay taariikhda dadka wax ka ogaato si ay u hesho ciduun oo iyada la safata waxayna dowladda maraykanku ogaatay dadka fiidnaamiyiinta inay ku noolaayeen weligoodba koonfurta dalka fiidnaam bartamaha inay ku noolaayeen qowmiyadda la yidhaahdo jam halka waqooyiga ay ku noolaayeen dadka kamboodiyiinta ah oo haatan ah dadka iska leh dalka lagu magacaabo kambodiya markii ay baarbaareen sooyaalka waxay ogaadeen dadka jaamka loo yaqaanay bartamaha fiidnaam degganaa in ay noqdeen dad muslimiin ah kadib markii ay xiriir ganacsi la sameeyeen dunida islaamka dadka ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ilbaxnimada soo gaarsiiyey dalka aynu haatan u naqaan fiidnaam barnaamijkeennana aynu kaga hadlayno dadyowgaasu xilliyadii hore intaanay muslimiin waxay ahaayeen dad caabuda dhagaxa intooda badanna diintoodu ay ku fadhido diinta hinduuga loo yaqaano inkastoy diin kale ahayd xilligaa kirishtaanku wax xooga kuma lahayn fiidnaam kirishtaanka dhabtaa waxa uu soo gaaray dalka fiidnaam qarnigii 17aad waxaana keenay wadaad burtuqiis ahaa wax yar dabadeedna yuruubiyaankii kirishtaanka ahaa markay arkeen islaamku inuu ganacsi wanaagsan halkaa ka sameeyey doonyahooda shiinaha badeecadaha ka keena una qaadana ay ku nastaan waxay damceen dalka inay qabsadaan waxayna ahaayeen yuruubiyaankii ugu horreeyey halkaa gaaray markii laga reebo burtuqiiskii diinta kirishtaanka faafinayey holandays waxaana soo raacay faransiiska iyo ingiriiska sidii lagu yaqaanay xilli dambena dowladda faransiisku waxay go'aansatay halkaas si rasmiya inay u degto kana samaysato gumaysi iyadu maamusho taasoo ay yuruubiyaankii kale ka oggolaadeen xilligii dambe yuruubiyaanku adduunka kala qaybsanayeen gumaysanayeenna sidii ayaa faransiiska loogu daayay dalka inkastoo faransiiska tabartiisu marba marka ka dambaysay ay ahayd mid soo yaraanaysay haatanna ay caddayn inoogu filan tahay inayba iskaga baxeen dalkii fiidnaam maraykankuna kala wareegay faransiisku waxa uu xilli dambe halkaa ka bilaabay nidaam waxbarasho si uu u soo jiito dadka fiidnaamiyiintana waxa uu bilaabay ardadooda inuu u diro dalkiisa iyo dalal kaloo yuruba si ay wax u soo bartaan waana halkaa meesha ay kaga bilaabatay dhibaatadii ugu horreysay dhallinyaradii la diray waxaa ka mid ahaa nin dhallinyaro oo lagu magacaabo hu jimin kaasoo gebi ahaanba bedeli doona taariikhda fiidnaam waa ninkii shuuciga ahaa ee waqooyiga fiidnaam qabsaday xilligii dambena ka adkaaday dowladihii reer galbeedka ah ee faransiiska iyo maraykanka ilaa iyo haatanna adduunka lagaga sheekeeyo taariikhdiisa hu jimin dowladda faransiisku waxa u dirtay dalka faransiiska xilli dambena waxa uu gaaray magaalada london halkaasuu muddo ku noolaa kagana shaqeeyey cunto karinta waxa uu ahaa yaraantiisii nin jecel inuu safro adduunkana ku dalxiiso soona barto dhaqamo kala duwan iyo cuntooyin kala duwan markii uu qaaradda yurub ka soo noqday soona gaaray dalkiisii fiidnaam oo ay faransiisku weli haystaan waxa uu go'aansaday bal inuu adduunka kan ka soo horjeedaa isha soo mariyo iyagana waa shuucigii oo xilligaa cusbaa dalka ruushkana haysta shiinahana ka dagaalamaya waxa uu booqday dalalka ruushka iyo shiinaha waxaana uu ku qancay fikradda shuuciga ah waxa uu nacayb u qaaday gumaystaha midabka cad ee dalkiisa fadhiya waxaana uu cad ku maray inuu ka saarayo gebi ahaantoodaba hu jimin waxa uu istusay gumaystaha dalkiisa haysta inaanu xilligaa ka saari karin balse si uu uga saaro mustaqbalka gumaysaha dalkiisa waxa uu go'aansaday inuu la shaqeeyo shuuciyiinta reer shiine waxaana uu noqday askari ka tirsan ciidamadii shuuciyiinta ay ka amar qaadanayeen mow siidoonkii shuuciga ahaa ee shiinaha haystay lana dagaalamayay jankasheeg intuu dagaaladaa ku jiray waxaa gacanta ku dhigay jankasheeg oo ahaa ninkii markii dambe lagaga adkaada shiinaha taywaanta haatan marowgu ka taagan yahayna samaystay 1939 markii uu bilowday dagaalweynihii labaad ee adduunka ninkan waxaa u soo baxay jaanis aan hore u haysan sanad dabadeed dagaalkii adduunku markuu bilowday dowladdii jarmalku waxay qabsatay gebi ahaanba faransiiskii isaga dhulkiisa gumaysanayey dowladdii fijiga ka amar qaadanaysay jarmalku saaxiib la ahayd jabaanna waxay ku wareejisay dalkiisii jabaan waxaana uu nacayb kale u qaaday jabaanayskii haatan waxa uu leeyahay laba cadow kuwaasoo kale ah faransiiska iyo jabaan balse dagaalkii labaad ee adduunku markuu dhammaaday labaduba waxay noqdeen kuwii ku jabay dagaalka inkastoo faransiisku uu ka mid ahaa dowladihii reer galbeedka markii dambe guusha sheegtay haddana faransiis ahaan awooddiisu kama aana dambayn dagaalka
waxa uu noqday dalkii caanka ah ee Faransiisku mid isagiiba la qabsaday caasimadiisiina Jarmalku la wareegay. waxay noqotay dowlad aan iska bixin karin amaahihii lagu lahaa, maamuli karinna dhulkii ay gumaysan jirtay. waxyaabahaasoo dhammina waxay ku khasbeen dowladda Faransiisku inay Yuruubiyaankii kale ku wareejiso dhulal aad u fara badan, kuna ekaato meelo kooban inkastay sii haysatay inta badan qaaradda madow oo iyada maaraynteedu aanay u baahnayn kharashaad badan, maadaama dadka Afrikaankaasi iyo si kaleba weligood ay u yasi jireen Yuruubiyaanku kharashaad badanna aanay u baahnayn. ardadooduna ma ahayn kuwo 90% iyo wax la mid ah dibadda loo diro si ay wax u soo bartaan amaba la baro aqoomaha sare. waxay ahaayeen dad lagu shaqaysto, beerahana loo diro. dagaalweynihii labaad adduunku marka uu dhammaaday, Chiang Kai-shek waxa uu cararay dhanka Taiwan. ninkana waxaa laga soo daayay xabsigii maadaama shuuciyiintii Shiinaysku ay dhulweynaha Shiinaha loo yaqaano qabsadeen. waxyar dabadeedna waxa uu soo gaaray dalkiisii oo haatan uu ku sugan yahay Faransiis bilaa tabara. waxaana uu bilaabay ninkan xilligaa inuu ku biiro xisbigii hanti wadaag ahaa ee Faransiiska. waxyar dabadeedna gudaha dalka Faransiiska waxaa ka curtay xisbigii shuuciga ahaa, maadaama dalkiisa weli Faransiisaystana waxa uu ku biiray xisbiga shuuciga ee Faransiiska. labada xisbi aragtiyadooda markuu isu fiiriyey waxa uu diiday inuu labadaba la shaqeeyo. waxa uu noqday macangeg, balse taasu waxay noqotay tii uu horseeday guushiisa. waxa uu samaystay xisbi shuuci oo ka madax bannaan labadaba. waxa uu arkay xilligan inay yihiin kuwa aan tabar lahayn, lalana dagaalami karo. sidaa ayuuna ku bilaabay halgankiisii dheeraa ee uu ku xoreynayay dalkiisa, ilaa iyo la gaaray fataxaddii weyneed ee Maraykanka ka raacday magaalada Saigon ee caasimadda u ahayd koonfurta Vietnam. waa xilligii ciidamadiisu ay galeen safaaraddii Maraykanka, danjirihii Maraykanka iyo askartii Maraykanka oo cararayana adduunka markii ugu horreysay lagu arkay. inkastoo innagu aynu nahay daawadayaal dad islaam ay lahayn inoo sheega xaqdarradu mar walba inaanay guulaysanayn. haddii bilowga aankay shaydaan kuu macaaniyo, ugu dambaynta waxay noqotaa mid dhabarka ka kala jabtaa, xaquna uu ka guulaysto. dagaalka Vietnam labada dhinac ee dagaalamaya waxay ahaayeen laba kala aragti duwan, qolo xaq ku dagaalamaysa iyo qolo xaq darro ku dagaalamaysa. ninkani waxa uu doonayay dalkiisa inuu xoraysto, wuxuu doonaba ha ku maamule. anigu shakhsi ahaan waxaan ahay shakhsi ka soo horjeeda xisbiyada ninka noociisa ah,